xabsiga Kobar waa xabsiga ugu daada weyn Suudaan waxaa la furay sanadkii 1903 waxa uu ku yaala xaafadda Kobar ee u dhow wabiga Blue Nile ee magaalada Khartoum xabsigan waxaa loogu magac daray General Kobar waxa uu ahaa sarkaal Ingiriis ah oo xabsigan maamuli jiray waayadii hore badka uu ku fadhiyay xabsigani waxaa lagu qiyaasaa 5,000 oo mitir oo laba jibaaran nashqadeyntiisuna waxa ay la mid tahay qaab dhismeedka xabsiyada Ingiriiska waxa uu ka kooban yahay 14 qaybood oo ay ku jiraan qaybo loogu talagalay dadka lagu xukumo xukunada dilka ah qaybta dambiilayaasha fudud qaybo kale oo loogu talagalay kuwa lagu xukumo xabsiyada dhaadheer ee madaxaha ku furto iyo qayb u gaar ah maxaabiista siyaasadeed xabsigan dadka caanka ah ee hadda ku xiran waxa kamid ah madaxweynihii xukunka laga tuuray Umar al-Bashir iyo tiro kamid ah madaxdii taliskiisa al-Bashir ayaa la dhigay xabsiga Kobar sanadkii 2019 waxa xusid mudan in Umar al-Bashir uu yahay madaxweynihii ugu horeeyay ee maxkamadda dambiyada caalamiga ah u jirto waran lagu soo xirayo isagoo xilka haya iyadoo ku eedeysay inuu geystay dambiyo ay kamid yihiin xasuuq dhacay 30 sano ee uu dalkaasi xukumayay waxyaabaha kale ee lagu eedeeyay waxa kamid ah inuu sameeyay kicin dadweyne iyo rabshado ay kamid yihiin dil kufsi iyo jirdil lagu la kacay dadka gobolka Darfur laakiin dagaalka ka socda wadanka Suudaan ee galay toddobaadkii labaad ayaa saameeyay maxaabiista ku xiran xabsiyada waaweyn ee wadankaasi xabsiyada ayaa lagu soo waramaya in bartilmaameed laga dhigtay waxaana la soo warinayaa in madaxweynihii hore ee Suudaan Umar al-Bashir uu kamid yahay maxaabiista xabsiyada dalkaasi ka baxsaday gaar ahaan xabsiga Kobar warbaahinta qaar ayaa tabisay in saraakiil hore uga tirsanay dawladda Umar al-Bashir ay xabsigaasi ka baxsadeen laakiin ilaa hadda ma cadda halka uu ku sugan yahay madaxweyne Umar al-Bashir ila wareedii ayaa sheegaya in madaxweynihii hore ee Suudaan sanad ka hor loo wareejiyay isbitaal halkaasi oo lagu la tacaalayo xaalada caafimaad darro oo soo wajahay awgeed booliska Suudaan ayaa isniintii xaqiijiyay in Bashir uu wali ku jiro isbitaalkaasi xafiiska warbaahinta ee booliska Suudaan ayaa CNN-ta u sheegay in Bashir uu wali ku jiro isbitaalka dhammaan hogaamiyaashii la xidhnaa ee taliskiisa iyagana laga soo saaray xabsiga Kobar ka hor intaan laga sii deyn maxaabiistii kale ee xabsigaasi kula xidhnaa axadii la soo dhaafay marka laga tago Kobar waxaa jira xabsiyo kale oo ay ka baxsadeen maxaabiistii ku xidhnaa dagaalada ka socda wadankaasi awgeed koonfurta Darfur ugu yaraan 750 maxbuus ayaa lagu soo waramayaa in ay baxsadeen halka boqolaal kalena ay ka baxsadeen xabsiyada Khartoum iyo Omdurman